waxaa adduunka dhibaatooyin runtii fara badan ku hayay cudurka coronavirus ama COVID-19 kaasoo runtii dad badan ay u geeriyoodeen boqolaal kun oo qofna ay cudurka dartiis maanta la xanuunsan yihiin oo la jiifaan waxaa kaloo ogtihiin in cudurkaani runtii uu hoos u dhac ballaaran ku sameeyey dhaqaalihii adduunka ganacsigana naafeeyey maadaama isku socodkii dadka iyo duulimaadadii iyo ganacsigii intuba ay joogsadeen haddaba runtii cudurkaani dalkeenu wuxuu ka mid yahay meelaha ama dalalka uu saameeyey dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan iyo nolol ahaan intaba haddaba si looga hortago inay arrintaani saameyn aad u weyn ay ku yeelato shacabkeenna noloshiisa ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin ay ka mid yihiin kow in cashuur dhaaf gaarsiisan 100% loo sameeyo waxyaabaha quutu daruuriga ah ee dadku quutaan ama raashinka qaar ka mid ah halka cuntooyinka qaarkoodna loo sameeyey cashuur dhimis gaarsiisan 50% dowladda Soomaaliya oo hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ra'iisul wasaare ka yahay mudane Xasan Cali Khayre runtii waxay dadaal weyn u gashay sidii shacabka Soomaaliyeed ay ula socon lahayd in maciishada ay ku heli karaan qiimo ay awoodaan waxaana dowladdu runtii ay shirar badan oo ra'iisul wasaaruhu uu hogaaminayay ay la yeelatay ganacsatada Soomaaliyeed iyadoo kala hadashay ganacsatada inaysan raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee laga maarmaanka u ah nolosha aysan ku qaadiyeen shacabka Soomaaliyeed mar haddii loo sameeyey canshuur dhaaf iyo canshuur dhimis intaba haddaba fariinta aan maanta halkan ka dirayno waxa weeye in ganacsatada Soomaaliyeed ay fahamto sababta loo sameeyey canshuur dhaafka inay tahay inay ayaguna u naxariistaan dadka iyo shacabka Soomaaliyeed oo maanta ku jira runtii marxalad adag oo fursadda la siiyey ee canshuur dhaafka ah aysan ka dhiganin mid ay macaash ay shacabka ka dhex raadiyaan runtii waxaana soo gaaraya warar horudhaca oo sheegaya in maciishada ay kor u kacday oo waxyaabaha quutul daruuriga ah ama laga maarmaanka ah intooda badan la kordhiyey taasoo runtii aan marna qiil loo heli karin dowladda Soomaaliya waxaa xilka saaran yahay inay ilaaliso nolosha shacabka Soomaaliyeed si dhowna ay runtii ula socoto inay bulshadu maciishadooda ay ku heli karaan qiimo ay awoodaan sidaas darteed dowladdu waxay si dhow ula socotaa ishana ay ku haysaa runtii ganacsatada iyo goobaha ganacsiga bulshada uga faa'iideysanaya marxaladan ama duruufahan adag oo ay ku jiraan oo sicirka ku qaaliyeynaya waxaana runtii dowladda oo xilka saaran yahay badqabka bulshada dhinaca cuntada iyo adeegyada kale ee laga maarmaanka u ah ay runtii ka qaadi doontaa tallaabooyin adag oo runtii sharciga waafaqsan sababta canshuur dhaafka loo sameeyana ma ahayn in shacabka Soomaaliyeed lagu qaaliyo cuntada iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah noloshooda waxay runtii ahayd inay ganacsatadu ay shacabka
ay u naxariistaan qiimaha maciishaduna ay hoos loo dhigo. waxaan u soo noqonayaa ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii aan dhihi karo weligoodba shacabka Soomaaliyeed ayaga ayay ku tiirsanayeen wax badanna way soo tareen marxalado badan oo shacabkan oo aad u adag oo shacabkaani u baahnaa caawimaaddoodana runtii shacabku waa kala soo dabaasheen wax badanna way tareen maantana waxaa lagu jiraa runtii xaalad ka adag kuwii hore oo waxaa loo baahan yahay inay shacabkooda ay u damqadaan oo ay hoos u dhigaan qiimaha raashinka maadaama iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah nolosha dadka ganacsatada runtii shacabku ayaga ayuu mar walba ku baxsan jiray hadday noqon lahayd taakuladooda iyo hadday noqon lahayd caawimaadooda shacabka Soomaaliyeed intooda badan ayuu ka heli jiray maantana waxaa laga doonayaa inay shacabkooda u damqadaan u naxariistaan u turaan shacabkooda waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga faa'iideysto maadaama uu istaagay runtii wax badan ay istaageen oo nolosha iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha intaba muxuu ahaa saameeyay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed oo runtii ganacsi noloshoodu inta badan ay ku xirreed xagga dibadda waxyaabaha laga keeno 90% in runtii dhibaatadan loo bedelo fursad oo shacabka Soomaaliyeed runtii oo Ilaahay ku manaystay khayraad kala duwan hadday noqon lahayd xag beer iyo hadday noqon lahayd kalluun iyo hadday noqon lahayd xoolo intaba in shacabkeenu maanta ama ganacsataduna ay yihiin ganacsato runtii hal abuur leh oo runtii ganacsigana ku fiican maanta ganacsatada waxaan ka rabnaa iyo shacab dadka Soomaaliyeed intaba inay ku tartamaan wax soo saarka gudaha inay ku tartamaan shaqo abuurka sidii dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa inay ku tartamaan runtii sidii khayraadkeena dihin ee dalkeena yaala looga faa'iideysan lahaa oo dhibaatadaana fursad loogu bedeli lahaa gaar ahaan xilligan Google lagu jiro in wax soo saarka gudaha la kordhiyo gaar ahaan dalagyada dalkeena sida galeyda iyo masagada iyo qudaarta iyo muxuu ahaa dhammaan in aad loo kordhiyo ayaan ayadana muxuu ahaa ganacsatada iyo shacabka dhammaan u soo jeedinayaa oo muxuu ahaa fursadahaas jira runtii laga faa'iideysto waxaan kaloon runtii maadaama bishii Ramadaan ayna soo hayso waxaan ganacsatada runtii mar walba uga mahad celinayaa sida shacabkooda ay ugu turaan ay ugu naxariistaan bishaas barakaysan ee Ramadaan oo ah bisha runtii khayraadkana la laabayo oo runtii acmaal badan la doonayo oo muxuu ahaa saalix oo wanaagsan in la sameeyo inay shacabka ay ballan qaadeen inay shacabka u naxariisan doonaan oo runtii ay muxuu ahaa ay haddaba gacanta ku hayaan barnaamijyo runtii shacabka Soomaaliyeed qaar ka mid ah ama intii la gaari karo ama dadka dayarta lagu afuri doono ayagana waa uga mahad celinaa waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed runtii inuu arrintan uga gudbo midnimo iyo iskaashi iyo wadajir isla markaana shacabku istaakuleeyo waxaan kaloo soo jeedinaa in arrintan looga gudbo Ilaahow loo noqdo iyo in la badiyo istighfaarta iyo alla ka cabsiga in Ilaahay naga dul qaado waxaan kaloo runtii shacabka Soomaaliyeed ku boorinayaa inay qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirtu ay soo jeedinayaan iyo culimaadudiinka intaba sababtoo cudurkaani wuxuu leeyahay ka hortag marka shacabkeena maanta wuu saameeyay dad badanina waa runtii intii dhimantana Allah u naxariisto dadka shacabka ah maanta haayana Allah bogsiyo marka inta uu dad badan naga galaafan lahaa waxaan runtii shacabka ku bogaadinayaa in la qaato talooyinka caafimaadka kulli ayaga idin faahfaahin doona horena idinku faahfaahinaya intaas in la qaato talooyinka caafimaadka ilaahayna la tala saarto la isla kaalmaysto
si looga baxo dhibaatadan si wada jir la iskuna naxariisto ganacsatadana waxa weeye fariinta ugu dambaysa waxa weeye maanta waxa la joogaa xilligii aad shacabkiina garab istaagi lahaydeen waxa la joogaa xilligii shacabkiina idin baxsan lahaa marxalado badan oo kala duwan waa ka soo gudbiseen laakiin tana ugu qatarsantaan maanta waa imtixaankii ugu dambeeyay marka si imtixaankan muxuu ahaa looga gudbo ilaahayna in la tala saarto idinkuna inaad maciishad ku qaalisaan shacabka iskaba dhaafi waxa weeye waa qof walba waa inuu xoolihiisa bixiyaa waa in shacab maanta dad badan ayaa muxuu ahaa oo danyara oo ku noolaa inay waxa ay maanta soo quutaan ay suuq ay tagaan ayaa shaqooyin ku waayey meherad badanaa xirmay runtii waxaan rabnaa marka shacabkeena inuu baxo inuu istaakuleeyo isku naxariisto runtii sadaqa badan la bixiyo ilaahayna la baryo wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu arrintaas waxa weeye dawladdu isha ayay ku haysaa waana la socotaa waxaana hadda noo socda oo aan samaynay laga bilaabo 16kii bishii Maars markii lagu dhawaaqay in duulimaadadii iyo joogsadeen iyo muxuu ahaa oo dalku uu galay xaaladan aan la isu socon karin wixii ka dambeeyay wixii ku soo kordhay maciishada waxa dawladdu isha ayay ku haysaa gaar ahaan wasaaradda ganacsigu si dhow ayay la socotaa arrintaas ganacsataduna waxay leeyihiin gudiyo runtii arrintan u abaabulan waxaan rajaynaynaa arrintaas in runtii aan guulo ka gaari doono biidnillaahi alkariim in gaar ahaan inta lagu jiro bisha Ramadaan iyo inta dhibaatooyinka lagu jiroba in ganacsatadu ay deji doonto maciishada waana lagu la xisaabtami doonaa runtii raashinka boqolkiiba boqol midka lagu sameeyay canshuurta laga dhaafay iyo kan lagu sameeyay canshuur dhimista boqolkiiba 50 iyo dhammaan waxyaabaha daruuriga ah shacabka Soomaaliyeed waana lagu la xisaabtamaa ganacsatada ayagana waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim inay isxilqaamaan kaalintoodana way biixi doonaan arrintaasna shirar ayaa nooga socda hadda dawladdu waxa weeye waxa la gudboontaas waan sheegay waxa weeye ganacsatada isku mid ma ahan oo waa jiri karaan ganacsato runtii intooda badan waxaan u maleynayaa inay codsi ka yimid markii horeba ganacsatada ayuu ahaa arrinta in canshuur dhimis iyo canshuur dhaaf intaba loo sameeyo waxay ahayd arrin markii horeba ka timid dawladduna ay la qaadatay oo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan cali khayre oo runtii dhageystay markii cabashada ka imaanaysa xagga ganacsatada iyo baahidooda marka mar haddii baahidoodii la daboolay iyo muxuu ahaa canshuur dhaafkina loo sameeyey waxaan rajaynayaa dhankooda ayaguna inay ka fuli doonaan hadda ganacsatadii runtii si bareera arrimahaas u baalmarana kulley sharciga ayaa qaban doona wixii ku habboon oo sharciga ayaa arrintaas muxuu ahaa ayaa dawladdu ka qaadan doontaa